السلام عليكم kusoo dhawaada channelka xikmad goob hadad ku cusubta subscribe ku qabo muuqaalkan waa qaybtii shanaad ee mashruuca la dagaalanka nuurka sheekadu waxay noo mareysay iyadoo ay maasuuniyadu ay ku daashay inay bedelaan Soomaalida dhaqankooda waqtiga wuxuu yiri kulamo hoose ayaan ugu diyaarinaa inay dhalinyarta kula hadlaan waxaanay u jeediyaan hadallo u badan dhiirigelin ay dhalinyarta ku farayaan inay jabiyaan darbiga dhaqanka fikirka duuga iyo waxay ugu yeeraan dib u socodnimada waxay ku beer laxawsadaan maskax furnaada oo aqbala waxa cusub qof 2 ilaa 3 waanu doorinay ama bedelnay ilaa hadda waxa si aanu khaati ka taaganahay dhowr wadaad page ayaan habeenkii dambe ka helay isagoo ku jira baltiisa escape cabbar ayaanu isxaal wareysanay markii dambe ayaan u sheegay waxa naga haysta wadaado caqabad ku ah mashruucayaga page isma dhiibin ee wuxuu igu yiri laambadoodii way baqtiday ee ha ka baqan wuxuu yiri waxaanu nahay qoom sahan dirta marka ay dal leeyihiin iyo markasta oo ay dal ku duulayaan waqtiga aanu qorsheynay inaan dumino khilaafada islaamka ayaanu sahan u soo dirnay nin oday ah oo caqli badan wuxuu safar ugu baxay caasimadda islaamka ee Qustandiniya oo iminka loo yaqaan Istanbul intii aanu magaalada galin ayuu la kulmay caruur duleedka magaalada joogta mid ooyaya ayaa ku yiri adeer maxaa kugu dhacay aad la ooyaysaa wuxuu ugu jawaabay 10 leeb ayaan ganay oo mid ayaan la waayay halkii aan shiishay odaygu wuxuu ku yiri oo 9 baad la heshay maxaa ka oohiyay wiilkii yaraa ee muslimka wuxuu yiri gamuunka 10aad ee aan la waayay waxa ku badbaaday cadawga islaamka taas baan ka ilmeynaya halkiiba odaygii sahanka ahaa ka soo noqday oo sheegay in aanay dhaweyn xilligii la qabsan lahaa khilaafada islaamka isla odaygaasi waqti dambe ayuu soo noqday sidii si la mid ah ayuu arkay wiil yar oo ooyaya markuu weydiiyay wuxuu ka ilmeynayo wiilku wuxuu u sheegay inuu waayay gabadh uu jeclaa markaas ayuu sahankii noo sheegay in la gaaray waqtigii la dubin lahaa khilaafada islaamka sidii baanu ku burburinay ilaa magaceeda la waayay cid soo qaada wuxuu igu daray inay waqti dhaweed koox gaalo ah ay ku sheegeen culimo islaam ah waxay soo mariyeen dhowr wadan oo islaam ah cid garatay ayay waayeen markaas ayaanu garanay in ay baqtiday laambadii dunida islaamka u baxaysay hadda way lacag jecel yihiin oo wax badan oo saameyn ah ma laha ee ha u joojin ayuu si cad igu yiri waxaan weydiiyay bal inuu kuwii hore iga waramo page wuxuu igu yiri waqtiga ayaa igu yaray nimankaasi waa xoog aan ku nasan weynay waqti ayaanu doonay inaanu sixir ku soo aasno Masar diyaaradii sidee sixirka ayaa si lama filaan ah ugu dhacday Sinai waanu garan weynay waxa soo riday 30 sano kadib anagoo dhacdada baarayna magaalada Sharm el-Sheikh oo ninku hore ka mid ahaa noogu sheegay inuu diyaaradda soo riday wadaad Soomaaliya oo ducadiisii kaga adkaaday sharkii aan wadnay wuxuu page sidoo kale ii xaqiijiyay in ururka dhexdiisa ay ka rukacayaan awoodda xubnaha xaq jirka ee doonaya in aanu Soomaaliya la wareegno 2021 wuxuu yiri Erdogan ayaa 2011 shimbir u noqday Soomaalida isagoo si fudud ku kala daadiyay qorshihii degsanaa haddase damaca lagu doonay in Soomaaliya dib loogu qabsado rag baa miiska soo saaray waxay doonayaan inay dunida tusaan in Soomaalida soo celin kari weyday amnigii oo ay hanan weyday dawladnimadii sidaana lagu qanciyo ummadaha ilbaxa ah in Soomaalidu isku talin weydee ay haboon tahay in loo taliyo 60,000 oo askari oo UN ah ayaa hawsha loo diyaarinaya marka loo baahdo in qorshaha la fuliyay intaasan ku joojinaa muuqaalka qaybi hore waxaan ku dhigayaa description-ka lana soco qaybta xigta wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh